السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوعا marxuumkii baa wuxuu tegay meeshii laascaan ahayd. marka reer laascaanood waxa weeye waxay filayeen in uu marxuumku keeniyo ictiraaf uu xamar ugu keeniyo, laakiinse waxyaalo badan oo la yaab leh uu meesha ninkii lasoo fadhiistay. marka khudbad buu marxuumka reer laascaanood usoo jeedinayay. marka ninkii waxa weeye haddaa maqashidba xasan sheikh baa ka dhex hadlaya, yani ninkan mabda ma balhawa ya iska daa wax propaganda iyo been laga sheegay maahine hadda inta ka dhegeysanayna. marka khudbadii halkaas ka jeedinay waxaa ka mid ahayd inuu dhaho inuu reer laascaanood ka gado doorashadii beenbeenta ahayd uu xasan sheikh washaadi ku taloonayay buu rabaa inuu laascaanood ka gado. marka waa kan marxuumka asiga wixii afkiiska dhegeysta iyo arrintan ah in maamulka iyo dawladnimada iyo siyaasadda dadka loo celiyo arrintaana inaad hormuud ka noqotaan labadaba ayaan rajaynayaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo oo waxyaabaha aan ka wada tashigooda iyo ka wada hadalkooda aan idinku nimid qayb weyn ka tahay. waddanku axsaab buu siyaasadeed buu gelayaa 4.5 ka rabnaa in looga baxo. dadkeenna waa ku dhibtoodeen, dawladnimadii waa ku dhibtootay, waa lagu wadi la'yahay. reebel baa halkan lahaa, reebel baa halkan lahaa. dadkii aqoonta lahaa ee Soomaaliyeed ee dhalinyaradii wax soo baratay waa fed up bay ka istaageen, maadaama positionkii iyo waxay tartami lahaayeen reebel mar hadday meesha yihiin reebel ma lahayn lagu gelinaya iska tag. marka in dadkii war wixii competitive process hana loo geliyo aan ku tartanno oo aan xuquuq yeelano sida dastuurku qabo kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ayay dadkii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii Soomaaliyeed meel kasta ka leeyihiin. marka inay axsaabta halkan ku tartanto oo la keeno in doorasho ay timaado, in ay state-kani iyo state-yada kaleba oo maxaan ku dhahaa oo nabada aan rajaynayo insha allah inay hawshaas ay ka hirgasho. markaa maqasheen si hadda inta soo afkiiska dhahayay waxa weeye laascaanood wuxuu rabaa inuu doorashadii beenta ahayd xasan sheikh uu shaati ku talanayay inuu dadka gado. marka asaga aqal xumadood u fiirsaya waxaan dawlad ku sheegaa waxay rabaan in loo ogolaadana way rabaan, waxay dadka rabaanna ma rabaan inay ogolaadaan. laga soo qaad xasan sheikh baa Twitter uu soo qoray inay reer laascaanood ay ka mid yihiin Somaliland, inay heshiiyaan oo waxoodii sidooda hore ku laabtaan oo maxaabiis isku sidaayaan. marka nimanka odayaasha oo reer laascaanood arrintan waa ka xanaaqeen. Twitter baa mid ka mid ah kusoo qoray arrinta baabka arrintuu ka xanaaqay Soomaalid. weliba asagoo kasii xanaaqay in uu xasan sheikh uu asagoo Turki joogay inuu kasoo tanaagoodo oo ra'iisul wasaaraha uu dhabarjebin ku sameeyo. saas kusoo qoray Twitter page-kiisa. laakiin si aad maqlayseen marxuumka waxa weeye asagaaba xasan sheikh wuxuu dhahayay asagaaba inta ka dhahayo afkiiska dhahay si aad inta ka maqlayseen. marka hadda waxa kaliya u furan reer laascaanood waxa weeye iska adkaysanimayo hal sana baa ninka xasan sheikh u dhiman. marka xasan sheikh hortaan dhaaf taraafkiina helisan, laakiin inta ka horeysa billahi calaykum xasan nofala doorashada beenta xasan sheikh wata iyo balaayis hanala dhaxfaha aanu furfurna